kaas kadib waxaan u baxay waxbarasho dalka Malaysia oo aan August 2018 kii baxay oo aan soo laabtay June inkastoo aan wali waxbarasho soo dhameysano fasax ku joogo insha Allah toddobaad soo socdaan laaban doono si aan waxbarashadiida u sii dhameystirto maadaama runtii arkay muhiimadda ay leedahay waxbarashada waliba anaka ay noo leedahay si aan waxbarashada muhiimad gaar ah u saaro runtii waxaan markaan soo laabtay kadib aasay association aan ugu magac daray Somali Disability Somali Association Scholars with Disabilities oo ah magaciisa ururka aqoonyahanada ee naafada ay wax bartay runtii ahdaafta iyo waxyaabahan u yeelanayna waxay ahayd anigoo hiigsanay ilaa iyo 3 qodob inaan gaaro oo ahayd inaan marka hore u sameeyo waxa la yiraahdo hay'addan ay ka qabato waxa la yiraahdo scholarship seeking oo ah dadka wax baranaya ee naafada ah si walba wax u baranayaan og duruufaha iyo xaaladda adag ay ku jiraan inay helaan kaawinaad xagga caafimaad xagga waxbarashada hadii ay ahaayeen kuwa jaamacadaha dhiganaya inay jaamacadaha wadanka ay si tabarucaad ah u siiyaan hadii ay ahaayeen iskuulaadka inay kana free ay siiyaan taas oo aan objectivekii koowaad aan lahayn aan maanta iskugu imaanay sidoo kale waxyaabaha aan doonay inay SASD qabato waxa ahayd inaan sameeyo wax la yiraahdo employment seeking oo ah dadka naafada ay wax bartay ee dadaalay ee kartida iyo dulqaadka dheeraadka ah muujiyay haddii aysan helin wax shaqo in laga caawiyo inay helaan shaqooyin runtii qofku maadaama wax barto wadankeena iska yartahay opportunity shaqooyinka lagu heli karo waxaan u fikiraa laga maarmaan tahay in la helo advocacy ama dadka wax bartay naafada ah in loo doodo si ay shaqaaleysiin u helaan waxa dhacda in dawladda ay shaqaaleysiin badan sameyso dadka naafada ah countiga ama percentage ku lahaysan helin si taa u soo laaban una istaagto waxaan SASD oo Somali Association Scholars with Disability objective ama yoolka labaad ee tigsanaysa ay noqoto in ay helaan employment seeking oo ah in meel walba hadii ay public ahaato ama ay private ahaato dadka wax bartay jaamacadaha dhameeyay even kuwa high school ka dhameeyay laga caawiyo sida ay shaqo u heli lahaayeen objective-ka saddexaad ee aan ugu talagalay association kan ayaa wuxuu yahay inay la timaado wax la yiraahdo encouragement ama dhiirigelin oo ah in dadkii lagu dhiirigeliyo lagu wacyigeliyo muhiimadda waxbarashada u leedahay dadka naafada ah runtii waxaan ognahay stigma badan ay jiraan wadanku wali uusan ku baraarugsaneen muhiimadda nolosha ay dadkan ay leeyihiin waxaad dareemaysaa in dad family waxa arkaysaa 5 caruur ama 6 caruur ay u joogaan oo hal naafa ah ku jiro halkaas naafa laga yaabaa inaan loo dirin waxbarashada laakiin inta kale loo diro laga reebo taasi u yaraato marka waxaan insha Allah SASD qaban doonta waxyaabo social awareness oo ah in bulshadii qoysaskii guriyii dhammaan lagu wacyigeliyo muhiimadda dadkan ay leedahay in wax la baro runtii dhawaan yar sheekaan qof haweeney aan kulanay aan sheekaysanay marka waxay ugu dhahday waxa ii joogto 5 caruur ah iyo hal naafa ah so you see already way ka reebtaba caruurta inay dhahdo 6 caruur ay joogto maysa dheemba 5 caruur ay joogto iyo hal naafa this all this waa stigma ay dadku wajahayaan runtii SASD waxyaabo aragtay inay ka shaqeyso waaye oo ah in dadkaas encouragement la sameeyo motivations dadkii lagu dhiirigeliyo inay wax bartaan qaarkood ayaa jira dismoral ah runtii aaminsanayba gebigood inay wax qabsan karaan oo bulshadii ay kala kulmayaan dhibaatooyin badan ama la aaminsan yahay inay waxba qaban karin ayagoo dadkii naftirkoodu aamineenba qofku haddii marka uu waayo waxa la yiraahdo self confidence oo qofku marna isku kalsoonaa waayo waxaa dhacayso in qofka uu noloshii ka haro oo isku arko caqabadaasi isku dareemaba taas ay ugu wacantaa in la dareensanay muhiimadda dadkan ay leeyihiin waxaad arkaysaa qof naaf ah oo meel sarayo haddii dukaan kale loo maleynayo macnaha inuu beegin iyo dawarsi u sameynayo taas waxaa keenaysa xataa meesha la soo gaarsiin si marka all this waxaas ay dhan ay u baaba'aan waxaan association kan ugu talagalay inaan aasaaso si dadka naafada ah ay u helaan xuquuq xagga waxbarashada ah oo dhameystiran runtii barnaamijkan maanta waa introduction oo objective-keena koobaad aan iskugu imaano ahay inaan disability scholarship aan sameyno runtii waxaan adigu mahad celinaa jaamacadahan ajiibay ee noo yimid iyo kuwa badan oo ayagana ballan qaadi inuu sameeyo laakiin maantana soo gaarin oo diyaar u ah runtii inay dadka wax caawiyaan runtii waxaad dareemaysaa sida dadka noogu heleeyihiin iyo sidaan anaka ugu faa'iideysanayno runtii waxaan u tagnay kudwaad 10 jaamacadood oo magaalada Muqdisho ka dhisan u sheegnay muhiimadda barnaamijkan jaamacadaha qaar ay waxay badaheenba waxaan diyaar u ahay sanad walba dadkina scholarship siino laakiin waxa aan weyna meel aan u marno weeyaan u raaci lahayn oo yaa inoo keenay aan weysanayn marka haddii ay SASD u istaagtay inay barnaamijkan qabato aad aan soo dhaweynaa taa waxay dareemaysaa in bulshadana ay diyaar u tahay dadka naafada inay
caawiso ay wax la qabato laakiin la weysan yahay dad aan ka dhaxdeena ay kaca runtii si taa u yaraato oo isku xiritaan loo helo connections dadkii naafada ah bulshadooda loogu xiro sidaas ay u istaagi doontaa